habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waaniga waa maxamed cabdi xaraare oo idin la socodsiinaya qodobada wararkeena waaweyn waxa ay kala yihiin waxa lagu tilmaamay xerada qaxootiga ugu xun dunida BBC-da ayaa booqatay xero qaxooti oo ku taala Greega oo laga soo sheegayo rabshado iyo xaalado nololeed oo liita warbixin dheeraad ah ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah qaxootiga reer Syria ee u qaxay dalka Lebanon ayaa lagu cadaadinayaa inay dalkooda dib ugu noqdaan iyadoo ay jiraan digniino caalami ah oo sheegaya in dalkoodu aan wali amni ahayn waxaan sidoo kale idin haynaa falanqeyn iyo waraysi ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay gobolka Soomaalida Itoobiya iyo dacwadaha lagu soo oogay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar caawana waxaanu la kulnay xidiga kubadda kolayga ee reer Cameroon kana ciyaara NBA-da Joel Embiid kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka shaqaalaha hay'adda MSF ayaa ku tilmaamtay xerada qaxootiga ee Merio ee ku taala jasiiradda Greega ee Lesbos in ay tahay tan ugu nolosha xun dunida waxa ay sheegeen in caruur badan oo ay da'doodu tahay 10 sano jir isku dayayaan inay isdilaan xaaladaha nolosha oo ku adag awgood hadaba waxa la sheegay in jasiiradda Lesbos oo kamid ah meelaha ay degaan qaxootiga doonaya in ay Europe soo galaan xilligii ay xaaladda soo galootiga sareysay sanadkii 2015 in ka badan 1 milyan oo qof oo Europe soo gaaray ayaa halkaas intooda badan waxa ay ka yimaadeen dalka Suuriya in ka badan 8,000 oo qof oo kamid ah dadkaasina waxa laga soo tahriibiyay badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega xeradan ayaa la sheegayaa in ay ku filan tahay dad gaaraya ilaa 2,000 oo qof iminkana waxa ku nool in ka badan 8,000 oo qof Aisha Afrax ayaa inoo faahfaahinaysa halkan waa jasiiradda dalxiiska Greega ee Lesbos hadda waxa ay hoy u tahay xero qaxooti oo lagu sheegay inay tahay tan ugu nolosha xun dunida kaliya waxaana la siiyey 45 daqiiqo inaan xerada ku soo wada aragno qaybtan waa qaybta dadka hadda yimid waxa ku nool 7,500 oo qof kaliya waxayna qaadaa inuu dhaxaysa 2,000 ilaa 3,000 raashin la'aan ba'an ayaa jirta xaaladuhuna way ka sii darayaan halka ay rabshaduhuna si joogto ah u socdaan afgaaniyiinta iyo carabta ayaa habeen kasta isdagaalaya waxaana ku khasbanaanaa inaan xerada banaankeeda aan u baxno qaxootiga imanaya jasiiradda ayaa sii yaraanaya markii loo eego sanadihii tegay sida qaybta ka ahayd heshiiskii Turkiga iyo EU waxaa lagu haynayaa jasiiraddan halkii laga geyn lahaa magaalooyinka intii aan muuqaaladan duubaynay 2 qof ayaa midi lagu geliyey saf raashin loogu jiray booliska ayaana noo diiday inaan goobta u dhowaano markasta waa sidan dagaal ayaa bilaabanaya hadda safka raashinka ayuu ka bilowday 2 qof ayaa la mindiyay markastana waa wax ay 2 koox isku haystaan hay'adda MSF waxay sheegayaan in xaaladan ay horseedayso dhibaatooyin qoto dheer waxa ayna hayaan caruur yaryar oo isku dayay inay nafsadooda qaadaan waxaan wargelinaa dawladda hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo wasiirka caafimaadka inaan hayno caruur 10 jiro ah ee isku dayay inay naftooda gooyaan mana jiraan dhaqaatiir cilmu nafsi oo jasiiraddan jooga inkastoo aan isku daynay in caruurtan loo raro magaalada Athens si degdeg ah taasina uma muuqato inay dhici doonto cali iyo niman kale ayaa ka soo cararay xerada kadib dagaal ba'an oo bishii 5 dhacay kaasoo u dhaxeeyay nimanka carabta iyo kuwa kurdida biro ayaana dadka lagu garaacayay waxaan ogaanay inayba jirto iskooxkooxaysi iyo cunsuriyad ma kula tahay inay dad khatar ah joogaan Moria ma ahan ra'yigayga waa xaqiiqo wixii la rabo ha la dhaho haddii aadan ku noolayn adiga ma fahmi karaysid waa sidii dagaalka Suuriya waliba ka daran iyadoo ay xaaladdu sidan tahay wali doomo ayaa imaanaya dadka saaran doontan dhammaan waa Afgaaniyiin
waxayna ku faraxsan yihiin inay ugu yaraan yimaadeen meel nabad ah hase yeeshee kama warqabaan dhibaatooyinka horyaala. weli arrimo qaxooti ayaanu ku jirnay. qaxootiga Suuriya ee u firxaday dalka dariskooda ee Lebanon si ay dagaalka uga badbaadaan ayaa iminka lagu cadaadinaya inay dib dalkoodii ugu laabtaan inkastoo caalamku ka digay inaanay habooneen in lagu celiyo dadkaasi dalkooda. Cismaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya. ciyaar kadis ah waxay u dhacdaa si aan la qorshayn 15 kiiloomitir ayay ka fog yihiin dhulkooda. xeradan waxaa loo dhisay qaxootiga Suuriyaanka ah ee Lebanon jooga. koronto iyo biyo yar ayay haystaan. qaramada midoobay waxay sheegtay in 75% qaxootiga ay saboolnimo ku nool yihiin ama wax ka yar $4 maalintii. in badan halkan sanada ayay joogeen mana oga xilliga ay laaban doonaan. waxaa suuragal ah inaan halkan joogo bil kale 3 bilood ama sanad. nabadgelyada ayay ku xiran tahay. ma doonayo inaan laabto iyadoo dagaal uu weli socdo. boqolkiiba 90 qaxootiga waxa ay sheegeen in aysan doonayn inay ku laabtaan Suuriya. waad ogtahay qaxootiga qaarkii waxa ay walaac ka muujiyeen arrimaha ku aadan hantida jajuub military. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay damaanad qaad cayiman oo rasmi ah. Maher Mahmoud waxa uu u muuqdaa in uusan laabanayn. ku dhowaad 2 sano ka hor ayuu ka soo tagay Dimashqda dawladda maamusho si uu u sii wato muusigiisa. wuxuu deeq waxbarasho u aadayaa dalka Kanada isaga iyo kooxdiisa. balse waxa uu ka walwalsan yahay wixii uu ka soo tagay. haddii xitaa iminka Suuriya ay tahay nabadgelyo oo dagaalkii joogsaday ma ilaawi karaysid wixii ku soo maray. xusuustaada iyo caqligaaga iyo fikirkaagaba waxbaa ka guuxaya. marka waxaad u baahan tahay inaad ujeeddada noloshaada aad hesho iyo weliba hiigsigaaga. dagaalka Suuriya waa mid wajiyo badan leh. mustaqbalka dadkiisa waa mid adag. intaasi oo dhan iyada oo jirto ayuu dalka u baahan yahay in dib loo dhiso. bal markana aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa. maxkamadda Israa'iil ayaa markii ugu horeysay xukuntay in dhismayaal laga dhisay dhul ay dad Falastiiniyiin ah lahaayeen ay sharciga waafaqsan yihiin. milkiilayaasha reer Falastiin ayaa doonayay in dhulkooda loo baneeyo. ha yeeshee maxkamadda Jerusalem ayaa sheegtay dhulka la iibsaday in aanan dadka iibsaday aanay ogeyn ciddii hore u lahayd. kalluumaysato Faransiisa iyo kuwa British ah ayaa ku dagaalamaya xeebta Normandy. dagaal ka dhashay kalluumaysiga doomo ayay isula tageen. in ka badan 30 doomood oo waaweyn oo Faransiisa ayaa la sheegay inay eryanayeen 5 doomood oo British ah. shaqaalaha doomaha ayaa la arkayay iyagoo dhagaxyo isku turturaya. daraasad ayaa soo jeedisay in qayb ka mid ah shinnida jeceshahay raashinka lagu daro sunta cayayaanka. cilmi baaristan oo UK lagu sameeyay ayaa sidoo kale soo bandhigtay cadeymo dheeraada oo ku saabsan in shinnidu la soo baxdo dabeecadaha qabatinka leh marka ay cunto cunnada nikotiinka leh. vanilla waa dhir udgoon oo la beerto. waxaa lagu daraa waxyaabo badan oo aan isticmaalno sida jalaatada iyo barafuunka. waayadan dambe waxaa kor u soo kacay qiimaheeda. $600 ayaa kiilada la kala siistaa. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka waramaya. waa socdaal adag oo lagu tagayo kaynta dhexdeeda. halkaas ayaan ugu tagnay Isadore Moradello. seefta uma sitay inuu dhirta ku jarjaro. waa hubkiisa si uu isaga ilaaliyo tuugta doonaysa inay faniilada ka xaddo. biladhan beeralayda Madagaskar beeraha dhexdooda ayay seexdaan si ay u ilaashadaan dalagooda. qabowga habeenkii ayaynu ku soo jeednaa. marmarka qaar ma seexano mudulka oo waxaan seexanaa kaynta. xaajigayga horey ayaa loo soo weeraray. marka uu seexdo aniga ma seexdo. marka aan seexdo isaga waa uu soo jeedaa. beeraha ku yaala tuulo xeebeedka Ambanisana waxaa ka buuxa vanilla. mid kasta waxaa ka muuqda sida ay u ilaaliyeen beeralayda Lyon iyo Oristen. ubaxa caleemahani ka soo baxaan dhowr marka ay soo bidhiiqaan waa in gacanta lagu jaraa. sababtu waa shinnida sida dabiiciga ah u samaysa waxaa laga helaa oo keliya Mexico. dhowr saacadood ayuunbay muuqataa sanadkii. laakiin hawshan oo keliya beeralaydu ma qabato.
caleemahan magacyo ayaa ku qoran si looga ilaaliyo tuugada. sanadkii aynu soo dhaafnay beerta Lyon hadh cad ayaa la xaday. beerta bariiska ayaan ka shaqaynayay markii faniilada la xaday. tuugta fursad degdeg ah ayay ku heleen. waan murugooday ooyey maxaa yeelay wax kasta waan weynay. ma haysto lacag aan iskuulka kaga bixiyo carruurtayda. qoyskayga dhib ayay ku jireen sanadka oo dhan. waxaa keenaysa qiimaha faniilada oo cirka isku shareertay 100% ayay caalamka kor u kacday 5 sannadood gudaheed. laakiin faa'iidooyin badan ayaa laga helay Madagascar. beeralayda qaarkood ayaa lacag badan sameeyey. dhaqaalahaasi ay sameeyeenna deegaankooda ayay ku horumariyeen. laakiin waqooyiga bari ee Madagascar khatartu way muuqataa. xadiiqadihii la ilaalayn jiray waa la baabi'iyey si faniilo looga beero. muddo sannado ah kayn ayay halkaas ahayd. qiimaha faniila cirka ayuu isku shareeray. dadka waxay raadiyeen dhul badan oo faniila ay ku beeraan, waxayna noqotay inay kaynta baabi'iyaan. dhulka iyo dadka waqooyiga bari ee Madagascar waxa ay arkaan wanaagga iyo xumaanta qiimaha faniilaha ee kor u kacaya. qiimahaas kor u kacay waxaa laga yaabaa inaanu sii jirin, laakiin saamayntiisu way sii jiri doontaa. dadka faniilada jecel talow maxay ku bedelan doonaan haddii qiimaheedu uu sidaa u kacay. weli waxaa inoo soo socda olole raadiyow lagu baahinayo oo ballaaran oo laga wado miyiga Burkina Faso. ololahan ayaa waalidiinta ku dhiirigelinaya inay carruurtooda jiran geeyaan goobaha caafimaadka. qadar yaro nasashaa dabadeed. weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka oo aniga maxamed cabdi xaraari ballan idin xasuusiyo qodobka warkeena caawa ugu weyn. waxaa lagu tilmaamay xerada qaxootiga ugu xun dunida. BBC-da ayaa booqatay xero qaxooti oo ku taalo Gariiga oo laga soo sheegayo rabshado iyo xaalado nololeed oo liita. caawana waxaanu la kulannay xiddiga kubadda kolayga ee reer Cameroon kana ciyaara NBA-da Joel Embiid. madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa la sheegayaa in lagu soo oogay dacwado badan oo ay ka mid tahay kicinta colaado sababay barakaca kumanaan qof. waxa isaga iyo 6 qof oo kale la horgeeyay maxkamad iyadoo maalmo uun ka hor la soo xiray, balse dibadbaxyo ayaa gobolka Soomaalida ka bilowday kadib markii 13 qof oo Soomaali ah talaadadii lagu dilay gobolka Oromia. haddaba saameyn intee leeg ayay arrintani ku yeelan kartaa isbedelka gobolka Soomaalida iyo guud ahaanba Itoobiya? waxaa hadda qadka magaalada Los Angeles ee California toos ugu jira Faisal Roble oo ka faallooda arrimaha Soomaalida. Faisal, marka hore ku soo dhawaa BBC Somali. waxaan maqalnay in ama maxkamaddu ay ku soo oogtay Cabdi Maxamuud Cumar in uu geystay dacwad in uu geystay dambiyo lagu sheegay inuu barakiciyay dad milyan gaaray sida aan shalay warbixin ku sheegnay. ma kula tahay in dusha loo saari karo eedeymaha intaa la eg? horta Maxamed, wax yar aan ka saxo warkii aad hadda sheegtay ee 13 qof ee la dilay laguma dilin dowlad deegaanka Oromooda ee Soomaalida dhexdeeda lagu dilay. 7 ka mid ah Ceel Axmaar baa lagu dilay oo 7 kiiloomitir ilaa 10 kiiloomitir jigjiga u jirta. inta kalena Baabili baa lagu dilay. labada meelood ay soo weerareen waa deegaanka Soomaalida. taas waa saxitaan. Cabdi Maxamuud waxyaabaha ay ku soo oogeen
waxbaa ka jiri karaan for instance tacadiyada uu u geystay soomaalida deegaanka jeel ogaadeen waxyaabuu ka sameeyey oo ana lafta dadkii lagu soo xiri jiray dhibaatooyinkii loo geystay intaasoo dhanba waa wax lagu soo oogi karo laakiin walba waxa hadda sababay in degdeg loo xidho deegaanka laga saarana waxa weeye dhibaatadii ka dhacday jigjiga oo inta badan lagu eedeeyey inuu isagu ka dambeeyey iyo kiniisadda Ethiopia oo markiiba qaylo weyn ka keento tiri dadka la bartilmaamsaday waxay ahaayeen dadka diinta Kristaanka ku nool ee jigjiga degan iyo deegaanka degan marka laba xaaladood oo qaarna wax run yihiin dadkana uu la qabay Ethiopian kale uu la qabay sida deegaanka Oromiya madaxda Ethiopia kale qaarna gaar yihiin oo deegaan ka dhaceen maalmihii dambe labadaas kolba ugu weyn dacwadaha hadda Cabdi Maxamed lagu soo oogay Faisal haddii aan ku weydiiyo dacwadiisu ma waxay ka soo bilaabanaysaa dagaalkii qoomiyadaha mase sidoo kale waxa dusha laga saari karaa dhibaatooyin fara badan oo hore u geystay sida Human Rights Watch iyo ay hore u sheegeen tan Soomaalida iyadoo arinteeda meel laga soo qaadayo miya waa arrimaha hadda kolba dadku aad iyo aad u falanqeynayaan human right-ka Cabdi wuxuu ka ahaa un horjooge siyaasadda Ethiopia ku aadan dadka deegaanka iyo sida loo xidhayay gaar ahaan Soomaalida ugu badnaatee jeel ogaadeen oo cadadkiisu inta la yaqaan kamay qarsooneen dawladda federaalka Prime Minister Abiy waqtiyada wuxuu ka asirdoonka ayuu madax ka ahaa ilaa madaxweynaha ilaa Prime Ministerka ay arintan imtixaaneed marka isagu wuxuu noqday wax la yiraahdo fall guy ninkii loogu wanqalayay arrimahaas Faisal haddii aan ka dhex galo iga raali noqo waqtigan waana soo hayaaye waxa la sheegay madaxweynaha cusub shalay wuxuu shaqada ka eriyay Leopoldska ninkii madaxda u ahaa waxaana hadda la sheegayaa in isaga iyo ciidamo ay doorka galeen arintaas waxa ma dhimi karto ama colaadku kuma soo celin karto gobolka runtii waa ku soo celin kartaa madaxweynaha cusubna xaq buu u lahaa ninka lagu eedeynayay inuu Leopoldska oo tacadiye badan geystay madax ka ahaa in farta lagu fiiqaa madaxweyne Mustafa ku saxsanaa hase ahaatee dhibaatadeeday leedahay taasna sidoo uga guntan lahaa madaxweynaha cusub ee u taala waa kugu raacsanahay arintaas Faisal Roble aad ayaad u mahadsantaa wuxuu ahaa Faisal Roble oo magaalada Los Angeles Skype-ka kaga jiray olole radio lagu baahinayo oo balaaran ayaa laga wadaa miyiga Burkina Faso ololaha ayaa waalidiinta ku dhiirigelinaya inay caruurtooda jiran geeyaan goobaha caafimaadka arintan ayaa ka qayb qaadatay badbaadin kumanaan caruur ah sida ay cilmi baaris lagu daabacay wargeyska caafimaadka Ingiriisku sheegtay Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa yaqaana dhashii raadiyaha aabaheed waxa uu leeyahay raadiyaha ayaa nolosheeda badbaadiyay hal sano oo kaliya ayay jirtay Marieta markii qandho xanuun badan ay ku dhacday oo ay bukootay waxaan u geynayay in dadkan daawo dhaqameedka wax ku dabiiba lacagtaydii oo dhanna waxaan ku bixiyey daawooyinka dhirta iyo dawooyin kale oo aan suuqa ka soo iibsado laakiin waxba way u tari waayeen maalintii lixaadna koomaa bay gashay aabaheed ayaa raadiyaha ka dhageystay olole wacyigelin ah oo waalidiinta lagu barayay calaamadaha lagu garta malaariyada jeeni wareenka iyo shubanka oo ah saddexda cudur ee ugu badan ee caruurta dalkaasi ay u dhintaan ololaha raadiyaha laga sheegay waxa uu ahaa tijaabo la waday oo 7 idaacadood oo dalka ku yaal laga sii daynayay muddo 3 sanadood ah haddii aad tahay wasiirka caafimaadka ee dal Afrikaan ah oo aad qof kasta oo kamid ah shacabka dalkaada caafimaadkiisa ku bixin karto $30 ilaa $40 markaasi waxaad tahay qofka go'aanka ka gaaraya cidda noolaanaysa ama dhimanaysa waa in la xaqiijiyaa wax kasta oo aad ku bixisay lacagta wasaaradda ilaa haddana taasi ma dhicin sanadkii ugu horeeyayba tirada caruurta malaariyada ku dhacday sida Marieta ee isbitaalada la geeyay waxay kor u kacday 650 sidoo kale waxa kordhay tirada caruurta isbitaalada loo geeyo xanuunada shubanka iyo jeeni wareenka waalidiinta ayaa fursad loo siiyay in ay telefoon u soo diraan barnaamij raadiyaha ka socda oo su'aalaha ay qabaan iyo sida ay caruurta u daryeeli karaan loogu sheegayay waxay sidoo kale la shaqeeyeen dadka deegaanka si loo horumariyo qoraalada iyo sheekooyinka kuwaasi oo dhabtii soo jiidanaya oo dareenka dadkana qabsanaya kana dhigaya si ku salaysan dhaqanka dadka marka ay dhageysanayaan ololahani si fiican ayuu uga hirgalay dhulka baadiyaha ah ee dadkoo dhan ay raadiyaha dhageystaan laakiin su'aasha taagan waxa ay tahay talow suuragal ma tahay in sidaas oo kale telefishinada dunida oo dhan fariimahaas oo kale looga gudbin karo daryeel caafimaad oo dadka wada gaari karana waa wax aan laga maarmi karin laakiin caruurta weli waxay u dhintaan cudurro la daweyn karo haddiise ay waalidiinta heli karaan xogo caafimaad oo warbaahinta loogu gudbiyo
waxaa suuragal ah in ubad badan noloshooda la badbaadiyo. bal iminkana haddii aan idin dulmaro wararka ciyaaraha ugu waaweyn. ciyaar koobka Libertadores ka tirsanayd oo dhex mari lahaa kooxaha Santos iyo Impiedes ayaa la joojiyay kadib rabshado hareeyay Sao Paulo. kooxda Santos ayaa qarka u saarneyd in ay ka harto wareegga 16 kadib markii kooxda Independiente ay 3-0 kaga soo adkaatay lugtii hore. lugta labaad ayaa ku socotay 1-1 ha yeeshee 7 daqiiqo dabadeed ayaa rabshado dartood loo joojiyay. Said Ibrahimo ayaa soo afjaray waqti 2 sano iyo bar gaaraya oo aanu gool dhalin kadib markii kooxdiisa Stoke ay ka adkaatay ciyaar dhex martay Huddersfield Town. Ibrahimo ayaa goolkiisii ugu horeeyay dhaliyay taniya markii uu ku soo biiray Stoke 15 milyan kala soo baxday. kooxo kale oo Premier League ayaa caawa garoomada ka muuqan doona. Everton ayaa wajahaysa kooxda ka ciyaarta horyaalka heerka labaad waa Rotterdam. Watfordna waxa ay arki doontaa Reading. kubadda cagta ayaa weligeed kaalinta koobaad uga jirtay ciyaaraha Cameroon iyadoo Samuel Eto'o ahaa ciyaartooyga ugu caansan dalkaasi ayaa iminka waxaa soo shacbaxaya xidig cusub oo aanu caalamka doonayay inuu ka soo muuqdo. BBC-da ayaa dhawaan la kulantay xidiga horyaalka NBA-ga waa kubadda koleyga Joel Embiid. dadaala waa gaadha markaad eegto taariikh nololeedkayga waxaan bilaabay inaan basketball ka ciyaaro markii aan 16 jir ahaa waxaan ku biiray horyaalka markaan ahaa 19 jir waxaa ku tusaysaa in wax kastaaba ay suurtagal yihiin. waa ciyaartooyga ugu caansan Cameroon iminka. awal waxaa ugu caansanaa Samuel Eto'o, iminka waa Joel Embiid. waxaan bilaabay inaan daawado ciyaaraha NBA-da markii aan 14 jirka ahaa waxaan rabay inaan ciyaaro laakiin aabbahay ayaa iga diiday. waxaanu idhi way kugu adag tahay xagga jidhkayga taasi oo ahayd wax lagu qoslo. haddaad daawato ciyaarahayga waxaad arkaysaa aniga oo jecel mar walba inaannu ciyaartooyga hardanno oo aannu isriixriixinno oo aan weeraryahan noqdo. adeerkay baa igala hadlay aabbahay oo u sheegay inuu ii oggolaado inaan ciyaaro dabeetana waan isku dayay ciyaartii. wakhti bay qaadatay waayo af ingiriisi kumaan hadlaynin waxaanay noqotay inaan luuqaddii ingilishka iyo basketboolkiiba barto. bilowgii markaad adigoo ciyaartooya Afrikaad ka timaado eed Maraykan timaado way adag tahay. saaxiibadayda aanu isku kooxdannay way iga maadsan jireen oo way igu qosli jireen laakiinse arrimahaasoo dhan waxaan u arkayuun inaan hore u socdo oo aan sii dadaalo. wax bilaashii ma jiraan adduunka waa inaad wax walba u shaqaysatid oo aad weliba laba jibaar u shaqaysid sida ay u shaqaynayaan asxaabteedan Maraykanka ah waayo aniga wad og tahay xitaa qoyskaygii ayaan ka soo fogaaday. waa inaad lahaato hadaf aad tiigsanayso oo aad ku dadaasho. carruurtaan arkay badankooda waxaan weydiiyaa maxaad u ciyaaraysaan basketboolka waxay yidhaahdeen Joel Embiid. waxaa jira Afrika ciyaartooy badan oo wanaagsan oo laakiin aan soo shaac bixin oon la arag. waxaan rabaa in dadku yidhaahdaan ciyaartooy Afrikaan ah ayaa adduunka ugu wanaagsan markay noqoto kubadda basketboolka. markan taa maqlo waxaan dareemi lahaa farxad gaar ahaanna carruurta Afrika ayaa iyaguna farxad dareemaya. ciyaartooy Afrikaan ah oo ugu wanaagsan horyaalka adduunka ugu wanaagsan waxa weeye hadaf la gaari karo oo weyn. inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caawa iyo caalamka aad ku mahadsantihiin daawashadiina intaana mar dambe dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.